labada gudoomiye ee xisbiyada mucaaradka ee UCID iyo wadani Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa dalka ka dhoofay socdaalka labada gudoomiye mucaarad oo kala duwan ayay wararku sheegayaan in uu la xiriiro arrimo iyaga u gaar ah oo aan siyaasad ku salaysnayn waxaase labadan gudoomiye socdaalkooda ku soo beegmaya iyadoo aanay weli dhammaan qadiyada gudida doorashooyinka ee waqtigan iyo dib u soo celinta kuwii hore oo ahaa qodobadii ay soo saareen ergadii dhexdhexaadinta ka dhexooday iyaga iyo xukuumadda oo aan weli si rasmi ah loo fulin labada gudoomiye mucaarad ayaa la sheegay in ay dalka ku soo laaban doonaan ka hor inta aanay gaadhin 10 bisha January ee 2020 oo uu madaxweynuhu qabsaday in uu ku soo dhameynayo sidii loo fulin lahaa labadaas qodob ee ergadu soo saartay ee ah kala dirista gudiga doorashooyinka ee waqtigan iyo soo celinta gudidii hore ee komishanka qaranka oo uu sheegay madaxweynaha in sharciga la waafajin doono